wararka aan barnaamijkan galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa oo u fadhiya shir lagu xalinayo xiisadii taagneyd Talibanka oo Kaabul lagaga mudaharaadayo dad la sheegay inay macaluul ugu dhinteen gobolka Tigray ee Itoobiya qaramada midoobay maxay ku qeexdaa macaluul waxay ku qeexdaa xaaladda dadka meeshaas degan ku sugnaan jireen iyo waxa la isbarbar dhigaa xaaladda ay hadda ku sugan yihiin dii barakac xoog leh uu jiro ama dalaga beeraha oo aan bixin waan socoto lagu xalinaya dagaal shalay ka dhacay Hiiraan odayaashuna waxay leeyihiin hadda dagaaladii way istaageen duubabkii dhaqanka ugaasku ugu horeeyo ayaa insha allahu tacaala arrinta ku jiro iyo anaga maamul ahaan dadkaas waa halkaa wax kala gaareen insha allahu runtoodii la xaliyo nabad lagu soo dabaalo sidaasaa ilaah ka rajeynaa waana ku tala jirnaa wararkii ciyaaraha intaa dheer soo saaraha barnaamijku waa xasan sheekh cumaraan oo axmed nagaashiina waan idinla socodsiinayaa ee galab wanaagsan saaxiibayaal waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan marka hore dhageystayaal warkii dunida iyo Saciid Xasan Anteno Saciid mahadsanid Axmed xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay inay dib ugu xaqiijiyeen Taliban inay u ogolaanayaan dadka baxaya inay ka dhoofaan Afghanistan haddii dadka safraya ay sitaan dukumentiyo hagaagsan Mr Blinken ayaa safarkiisa uu ku jooga Doha iyo wadahadalada uu kula jiro amiirka Qatar waxaa ku wehelinaya xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxay ku ammaaneen labadan xogaye amiirka kaalintiisa dadka laga soo daadgureynayo Afghanistan xogaye Blinken ayaa sheegay inaanu jirin dal ka qaatay howlgalkan doorka wadanka Qatar u qaatay oo kale wasiirka arrimaha dibadda Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa sheegay warfidiyaanka inay socdaan wadahadalada Taliban taasoo ah sidii ay u maamuli lahaayeen geegida dayuuradaha ee Kabul Mr Austin ayaa ka sheegay shir jiraa'id in dib u eegis lagu sameynayo hanaanka daadgureynta hayeeshee wuxuu ammaanay shaqadii ay qabteen ciidankooda militariga intii lagu guda jiray howlgalka daadgureynta xogaye Austin ayaa waxa uu ka yiri shir jiraa'id ee uu qabtay waxaan dabcan aad ugu faraxsanahay shaqadii wanaagsanayd ee ciidamadayada geesiyada ah ee ragga iyo dumarka isugu jira ay qabteen taasi oo ahayd daadgureynta 124,000 oo qof oo laga soo daadgureynayay garoonka magaalada Kaabul iyadoo wakhtiga la haystan ay ahayd wakhti aad u yar laguna jiray xaalado halis ah isla markaana aad u adkaa waxaan sidoo kale caddaynayaa in uusan jirin abid howlgal la dhihi karo 100% waxa u dhacay sidii la rabay mar kasta waxaa soo baxaya casharro ay tahay in la barto waxaan haatan samayn doonana waa waxa ay tahay mar kasta in la sameeyo marka laga hadlayo arrimaha militariga taasi oo ah in aan dib u eegis u samayno wixii aan soo marnay annagaan is eegno wixii aan samaynay qaabkii aan u samaynay iyo waxa ay suurtagal tahay in aan samayno oo sidaasi ka wanaagsan dadka u oleeya xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey ciidanka ammaanka ee masaarida inay sameeyaan dil ka baxsan sharciga iyagoo kadibna ku andacooda in dadka dhintay inay ku dhex dhinteen xabado ay isweydaarsadeen ciidanka iyo dagaalyahanada mintidka ururka xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegay in 5 sano ee la soo dhaafay in madaxda masaarida laga soo wariyay inay geysteen dilal noocan oo kala ah oo gaaraya 750 qof dhacdooyinka dilalka ayaa waxaa la soo gudbiyey in hal qof oo kaliya la xiray dadka u oleeya xuquuqda bini'aadamka ayaa si dhow u diiwaangeliyey dhimashada 14 qof kuwaasoo ay sheegeen qaraabadooda inay ugu wardambeysay iyagoo nool oo xabsi ku jira inta aanay dhiman madaxda masaarida ayaa qaaday ololo dheer taasoo ay ga soo horjeedaan dadka ka tirsan ururka akhwaanul muslimiinka iyagoo dowladda masaarida ay ururkan ku qeexday urur argagixiso 5 sano kadib markii uu dhicisoobay afgembigii lala damcay dowladda Turkiga dacwad soo ogayaasha magaalada Izmir ayaa soo saaray amaro lagu xirayo 240 askari in ka badan kala bar kal hore ayaa la xiray intooda badan waxay ka mid yihiin ciidanka rigliga ee Turkiga dacwad soo ogayaasha ayaa sheegay in taleefanadooda ay ku xirnaayeen Fathullah Gulen oo ah wadaad dibad joog ah kaasoo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembiga ku dhowaad 250,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ayaa shaqadii ay hayeen laga eriyey tan iyo isku daygii afgembi kadib Jarmalka ayay Angela Merkel waxay u isticmaalaysaa khudbadeeda ugu dambeysa baarlamaanka iyadoo ah ra'iisul wasaare inay ku weerarto xisbiga ay isbahaysiga ku wada jiraan maadaama ay soo fool leedahay dabayaaqada bishan doorasho waxay mar kale cambaaraysay xisbiga Social Democrats
inay meesha ka saaraan gacansaarka ay la leeyihiin xisbiga linke ee garabka bidix. Mr merkel taasoo xafiiska ku nagaatay ilaa iyo 16 sano ee lasoo dhaafay ayaa carabka ku adkaysay in keliya xisbigeeda muxaafidka ah uu keeni karayo deganaanshaha uu dalkani u baahan yahay. ra'yi ururintii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa muujinaysa in xisbigeeda c d u uu markii ugu horreysay ka hoos maray 20.6 boqolkiiba marka loo eego xisbiga kale ee s p d. dacwad oogayaasha sweden ayaa sheegay inay ka baaraandegayaan inay ku soo ogaan eedeymo 2 haween oo u dhashay sweden ka gadaal markii ay dib uga soo noqdeen dalka Syria Isniintii. xafiiska dacwad oogayaasha ayaa intaa ku daray inay go'aan ka gaarayaan Khamiista. haweenkan ayaa waxaa ka soo masaafuriyey madaxda Turkiga waqooyi bari Suuriya iyadoo ay wehlisay haweeney saddexaad oo lagu sii daayey Sweden iyo carruurteeda oo 6 gaarayey. dhammaantood ayaa la noolaa kooxda dowladda islaamiga. mid ka mid ah haweenkan ayaa lagu eedeeyey inay tababar u fidiyeen kooxda dowladda islaamiga. wararka soo baxaya ayaa intaa ku daraya in ka badan 10 haween oo reer Sweden ah iyo 20 carruura inay dib ugu soo noqonayaan ama ka soo noqonayaan xerooyin qaxooti oo ay maamulaan Kurdida Syria bishan. ugu dambeyn hogaamiyaasha military ee Myanmar ayaa ku gacan seeray dalabka ka imanaya mucaaradkooda taasoo ay ku tirtirsiiyeen shacabka dalkani inuu kacdoon sameeyo. afhayeenka dowladda Seo Min-tun ayaa sheegay in dalabka kacdoonka inuu ahaa oo keliya isku day lagu doonayay in lagu soo weeciyo dareenka caalamka. wuxuu intaa ku daray afhayeenku in isku dagaasu aanu guulaysanaynin. labada maamul ee dowlad ee Myanmar ayaa isbarbar socda halka xubnaha dowladdii la afgambiyey ay yihiin dibad joog iyagoo dalbaday in ololo dagaal lagala hor yimaado hogaamiyaasha military. waxay ku booriyeen kooxda hubeysan ee rayidka ah ee loo yaqaano xoogga difaaca dadka inay ku soo biiraan halganka socda. dad tiro badan ayaa barakacay iyadoo iska caabinta gudaha ay sii xoogaysanayaan ilaa intii la tuuray dowladdii lasoo doortay in ka badan 7 bilood ka hor. intaas waxaa inagaga eg warkii aan dib idinkugu celiyo Axmed Nagaashi iyo qeybaha kale barnaamijka. Axmed aad iyo aad buu mahadsan yahay Siciid oo warkii galabnimo inoo marinaya ayuu kaasi hayay. dhegeystayaal u diyaar garooba qeybaha kale barnaamijka. waata aan ku bilaabay dhegeystayaal waxaa magaalada Muqdisho maanta kulan ku yeeshay oo haatadanba u fadhiya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble. kulankaas oo ujeedadiisu tahay in lagu xaliyo khilaafkii ka dhashay amarkii ra'iisul wasaaraha ee shaqo ka joojinta madaxa sirdoonka Soomaaliya. haddaba waxaa haatan khadka toos ugu jira wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan oo faahfaahinta aan weydiinaya. Ibraahim, maxaa u dambeeyey? axmedow kulamadaasi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxay maanta ku dhex marayeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxaa jiray khilaaf ka dhashay shaqo ka joojintii iyo shaqo ku soo celintii agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo habeenka hor uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in shaqada laga joojiyey, laakiin saacado kadibna uu madaxweynuhu sheegay in agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu shaqada sii wato. dabcan markaa wixii ka dambeeyey labada dhinac way kala taagnaayeen iyadoo dhinac kasta ku adkaysanayay go'aankiisa. ha yeeshee ugu dambeyn maanta labada nin waxay ku kulmeen xafiiska madaxweynaha. dadka ku dhow xafiisyadaas waxa ay BBC-da u sheegeen in kulanka uu jawi qurux badan ku dhacay islamarkaana labada nin ay aada isugu waji furnaayeen oo ay aada isugu soo dhawaayeen arrimaha laysku hayeyna laga wada hadlay. sidoo kale waxaa joogay agaasimaha sida kumeel gaarka ah ra'iisul wasaaruhu uga magacaabay hay-adda NISA Bashiir Maxamed Jaamac oo isagu laftigiisa maalin ka horna la kulmay madaxweynaha. Bashiir waxaa la sheegay inay aadna isugu dhow yihiin madaxweynaha oo ay nin aad saaxiibo u yihiin ay yihiin. marka dabcan Bashiir laftigiisa uu joogay kulanka oo wadahadallada uu ka qayb galay, inkastoo kulanka albaabada ay u xirnaayeen oon macluumaad badan laga haynin. haddana ilaaha ku dhowdhow labada xafiisba waxay ka hadlayeen in kulankaasi jawi qurux badan uu ku dhacay oo labada nin ay aada isugu qalbi furnaayeen. waa tahay Ibraahim, maadaama oo sidaas ay wararka ay sheegayaan oo ah inuu jawigu si fiican u dhacay, wax rajo ah oo muuqata in khilaafkaasi xal looga gaadhaya ma jira ilaa haatan? dabcan ilo kala duwan oo aan la hadlay waxay sheegeen in rajadu ay aada u wanaagsan tahay oo ay muuqato in laga yaabo saacadaha soo socda in heshiis laga gaaro khilaafka ka dhashay arrinta shaqo joojinta iyo shaqo kusoo celinta agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxaa la sheegay in labada dhinacba ay aada isaga soo dhawaadeen, inkastoo waxyaabo kale oo hoose oo laga wada hadlay ay ku jiraan oo ay ka mid tahay arrinta kiiska gabadha la la-yahay. markii dambena hay-adda NISA ay sheegtay in al-shabaab ay u gacan gashay islamarkaana ay dileen Ikraan
tahliil faarax marka dabcan waxa ay dad badani leeyihiin axmedow maadaama labada nin waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay weji ka weji ama foolka fool isu arkeen oo ay wada hadlayaan rajadu aad ay u wanaagsan tahay in xal laga gaaro arrintaasi oo lasoo dhameeyo si aanay saameyn ugu yeelan shaqooyinka kale ee hay-adaha dowladda waxaad og tahay in marka khilaafyada sidan oo kale ah ay ku yimaadaan dowladihii hore tan ka horreysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba in shaqooyin badani ay istaagi jireen marka si aysan saameyn arrimahaasi ugu yeelan in si degdeg ah arrintan xal looga gaaro sidoo kale waxaa garwadeenka wada hadalladan xubno ka tirsan golaha wasiirada xubno ka tirsan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka marka dadaalada kala duwan ee socda dad badani waxay rajo ka qabaan in saacadaha soo socda lasoo gabagabeeyo khilaafka ka dhashay arrinta shaqa ka joojinta iyo shaqa kusoo celinta Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waa tahay ibraahim kasokow intaas iyo dadaaladaas socda waxaynu ogeyn in ay labada xafiis ka ra-iisul wasaaraha iyo ka madaxweynuhuba ay qaraaro kala duwan soo saarayeen ilaa haatan wax tallaabo oo la qaaday oo muuqataa ma jirta oo labada dhinac midkood u qaaday axmed howlihii xafiisyadaasi si caadi ah ayay maanta u socdeen madaxweynaha oo kale maanta wuxuu waraaqaha aqoonsiga danjaranimo ka guddoomay safiirka cusub ee midowda yurub loo soo magacaabay soomaaliya waa gabar waxay bedeli doontaa safiirkii hore barlenga xafiiska ra-iisul wasaaruhuna sidaas oo kale shaqooyinka caadiga way socdeen tallaabo kale oo ku saabsan arrintii khilaafku ka dhashay lama qaadin dad badan waxay ka hadlayeen inay suurtagal tahay in arrinta xil wareejintu ay dhacdo laakiin sida wadahadalladu ay u socdaan iyo sida dhinacyadu ay diyaar ugu yihiin in arrinta la xaliyo waxay taasi dib u dhigtay in lagu degdego xil wareejin ama xil wareegid agaasimaha ku meel gaarka hay-adda NISA maadaama madaxweynuhuna weli ku adkeysanayo in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu yahay agaasimaha guud ee hay-adda ra-iisul wasaaruhuna uu leeyahay shaqa ka joojin baan ku sameeyey oo agaasimo ku meel gaara ayaan magacaabay marka ilaa hadda tallaabo arrinta uga sii darayso oo dhinacyadu ay qaadeen ma jirto xaaladuna aad ayay u degan tahay waxaana moodaa in dhinacyadu ay ka fogaanayaan inay tallaabo kale oo dheeraada ay qaadaan oo arrinta uga sii dari karta aad iyo aad baad u mahadsan tahay ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da wakhtoos inooga soo tabinayey wararkaasi iyo faahfaahintaba ayuu kaasi ahaa magaalada muqdisho wixii warara ee dheeraada ee ka soo baxa shirkaasi intaanu hawada ku jirno ayaanu dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa haddii intaa kadib ay soo baxaana waxaad kaga bogan doontaan idaacadaha iyaga dambe iyo bog aanu ku leenahay internetka ee b b c somali com oo aanu mar walba faahfaahinta shirkaas iyo wararka kale waaweynba aanu idiinku soo gudbin doono wararka soomaaliya ee khilaafka ilaa shalay taagnaa ayaynu weli ku jirnaaye siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayay haddaba ismariwaagaasi oo waxaana jira in ay qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliya ay ka digayeen in haddii aan si deg dega loo soo afjirin khilaafka cusub ay waxyeelo ku iman karto hanaanka doorashada ee marka horeba liitay sida ay u dhigeen dhowaan ayay ahayd haddaba markii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu soo saaray jadwalka doorashada golaha shacabka iyo dhammaystirka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka haddaba maxamed cabdi cumar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaanu khadka teleefonka kula xidhinay oo aanu marka hore weydiinay bal hadda khilaafkan cusubi saamaynta uu ku keeni karo haddii aan la xalinin doorashada soomaaliya la filayo waxa uu warramay cabdifataax ibraahim cagayare walaal sax waaye doorashadii ayaa hadda mar dhow loo madalsanay ama la sugayay in horey loo galo marka arrintan hadda soo cusboonaatay doorashada waxay ku leedahay saameyn baaxadle ayay ku leedahay sababtay saameynta ugu yeelanaysana waxaa ka mid ah in waktigii la gelin lahay doorashada iyo qaabkii hore loogu soco lahay waktigaas in la geli doono isjiijiid kale iyo dagaal kale oo aanan ku salaysnayn doorashadii soo doorashada iyada lafteeda dagaalo badan iyo isririix badan ayaa ka imaan lahay isririixaasaa laga yaabi lahaa inuu mararka qaar wakti sii qaato oo dib u sii dhigo soo hadda waxay noqonaysaa marka kii iyadoon la gaarin mid kaleoo cusub oo crisis oo waddankii dhan ku jiro oo dhankii amniga iyo meelo badan ay wax ka saamaynayaan in uu dib u dhaco kulle mara isqabshashadu ay sii fogaatane waa kulle mara doorashadu dib usii dhacdo waan ficlanna waa wax iska muuqdo haddii aan hadda si dhaqso ah loo xalinin mar walba waktigu wuu sii ziyaadaya waana sii socon doontaa dib ayayna usii dhici doontaa saas ayay u badan tahay laakiin maxamedow madasha wadatashiga qaranka ayaa doorashadan ka mas-uula dhinacaasna ilaa haatan wax khilaafa oo ka muuqda ma arkin marka qaabkay u saameynaysaa madashu waxay ka shaqayn kartaa markii mataqaanidu ay doorashadii madaxda dowladda iyo ciddii kale ku tartamaysa iyo macaarad laysla wada socdo doorashadii la gelayo ishuga laga hadla oo ayada uu yahay ayay wax wadi karaan
meeshay ku shirayeen iyo qaabka iskugu imaanayeen iyo wixii siday u qabanayeen iyo dadkii mataqaanidoo la dooran lahaa iyo wixii wax dooran lahaa isku aadintoodii waxay rabtaa arrin amni iyo isku haleyn iyo kalsooni iyo waxbay rabtaa soo marka maba dhici kartaba macquulna maba ahaan iyadoo lees aaminsanayn oo amni ahaan la kala shakisan yahay oo ciddii mas-uuliyadda qaadi lahayd leesku haysta amniga oo kan ka qaad iyo kan u dhiib iyo kama qaadin iyo waan ka qaada leesku haysto macquul maahan inay shaqeeyaan tiimka kaleeto markii horeba hanaanka doorashada ay ku socotay mid xawaare ku socda ma ahayn caqabado badanna way jireen marba mid baa laga soo gudbaya haatan middan baa cusub ma jirtaa marka qaab hanaanka doorashada uu sii socon karo waa su-aal fiican waaye horta khilaafka iyo crisiska ama mushkiladan ama caqabada hadda taagan way kala duwan tahay iyo kuwii hore tii hore waxay ka taagneed caqabadaha hore oo imaanaya waxay ka taagneed mucaaradka iyo dowladda iyo rabta inay doorasho gato iyo doorashada sidaa rabtid ha u dhigin si mataqaanida hufan ee transparency ha u dhacdo iyo wax saas ay isku haysteen hadda mushkilada waxay ka jirtaa xayndaabkii gudaha ayay uu khilaafkii soo kala dhex galay marka kanu kii horena wuu ka ballaaran yahay wuuna ka saamayn badan yahay wuuna ka dhib badan yahay wuuna ka culus yahay waktigana in iyadoonan arrintaas meel layskula ogaanin doorasho la aado aad ayay u dhib badnaanaysaa way adkaanaysaa sidee marka wax laisula ogaan karaa khilaafkan oo taagan in doorasho la aado waxay noqonaysaa labada tiim kamida inuu tanaasulo unbay howsha ku fududaan kartaa maana iyadoo lays haysto amni sugitaanka iyo wixii ama mashaakilka meeshaasu ka dhaca yaa amni sugaayo adiga waa isdagaalsannahay dowladdii dhexdeeda ciddii amniga sugaysa yay hoos tegaysaa yaa amniga sugaayo marka waxaan u malaynayaa inay xaliyaan inay ku qurux badnaan doonto iyadoo saan laysku jiidaayo inaan waxba la dooran karin waxbana laysku imaan karin dhinacyada ay khusayso arrinta doorashada maxaa la gudboon inay sameeyaan wallaahi soomaalida horta waxaa waaye waa dhibaatooyin fara badan iyo khilaaf badan waa laga soo daalay iyo anaa kaa ragsan iyo waa kaa xoog badanahay waxba ma samayn kartid xaqiiqadu waxay tahay in si hoose gacmo geli jira hoos ayaa loo dhaqaaya si hoose wax loo galo ummadda la badbaadiyo waddanka la badbaadiyo crisiska hadda mataqaanida wuxuu ku jiraa meel adag ayuu soo galay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii labadii xafiiso mataqaanida waddanka ugu sarreysay inayna mataqaanida waxyaabo kala duwan ay soo saaraan arrin halisteeda la waaye soo marka waxaa fiican dadka culummada dadka waxgaradka dadka aqoonyahanka in arrintan loo kaco bal hoos loo dejiyo si aanan masiibo kale faraha loola gelin saasay ku qurux badan tahay maxamed cabdi cumar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho ayuu kaasi ahaa u warramayay cabdifataax ibraahim cagayare qaar ka mid ah dhegaystayaasha b b c da oo aragtidooda ka dhiibanaya haddaba shirkaasi ay u fadhiyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa fariimahooga facebooka noo soo mariyey waxaana ka mid ah jaamac maxamed food oo waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ee u fadhiya shirka lagu xalinayo xiisaddii taagnayd waxaana rajaynayaa in laga heshiiyo khilaafkii taagnaa horaana loo yidhi gacmo geeljire hoos baa loo dhaqaaye hase yeeshee waxaa muhiima in kulankaas aan lagu duugin kiiskii ikraan tahliil ayuu yidhi sayid cumar cismaan cabdulle oo jooga dhuusamareeb ayaa isaguna waxa uu leeyahay madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa ee u fadhiya shirka lagu xalinayo xiisaddii taagnayd runtii waan soo dhoweynayaa waxaana rajaynayaa inay madaxdu ay si hoose u xalisan doonaan khilaafka u dhexeeya si aanu u saamaynin khilaafkoodu hanaanka doorashada ee haatan uu gacanta ku hayo ra-iisul wasaaruhu qaar ka mid ah dhegaystayaasha b b c da oo aragtidooda ka dhiibanayay arrintaasi ayay kuwaasi ahaayeen wararkii soomaaliya aynu weli ku jirnaayo dhegaystayaal waxaa odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka hiiraan ay wadaan waanwaan lagu heshiisiinayo laba beelood oo shalay ku dagaalamay deegaanka kabxanley ee duleedka magaalada beledweyne gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka hiiraan axmed cismaan cabdille oo axmed inji ku magac dheer ayaan haddaba marsii horreysay khadka taleefonka magaaladaasi kula xidhiidhay oo iga warramay dadaalkaas ay wadaan waxaadse marka hore weydiiyey bal hadda in dagaalkii joogsaday iyo in kale aadan wuxuuna horta meesha waxaa ka dhacay soomaalidu dhika jir waa walaalo oo isdilayo marka hadda dagaaladii way istaageen duubabkii dhaqanka ugaaska ugu horeeyo ugaas yuusuf ayaa insha allahu tacaala arrinta ku jiro iyo anaga maamul ahaan aada u mahadcelina ugaaska dadaalkii iyo juhdigii uu ku bixshay waxaana rajaynaa insha allahu tacaala inaysan dibadib usoo laabanin dadkaas waa halkaa wax kala gaareen insha allahu runtoodii la xaliyo nabad usoo dabaalo sidaasaa ilaah ka rajaynaa waana ku tala jirnaa ugaaska ugaas yuusuf ugaas xasan ayaana hadda arrintaas insha allahu tacaala garab nugsiiyey waxaana rajaynaa insha allahu in dadkaas waa halka ay nabad helaan oo walaalnimadii ay soo laabato maxaa yeelay dad waalweysdaan macno keeni mayso annaga raalli kaman ilaahay raalli ka noqon maayo insha allahu haddana wax hadda xabadda socda ma jiraan waa rajo fiican leen insha allahu tacaala inaysa dib noo soo laabanaa laydinki insha allah waxaan la isku dilayaa ma daaqsin iyo reer guuraa caadadoodba mise waa arrimo siyaasiya ma ogaateen waxa la isku hayo
waxa weeyaan waa dadka deegaanka beerley ah waano dee wax soo jiri jiray oo Soomaalidu isku disho hadda waxa siyaasadda aan leenahay dee waa saas annaga ma ogin laakiin waa dad beerley ah oo walaal ah oo xiid oo xigaal ah waxa kale oo aan ognahay oo dadkaas isku diliyaan ma jiro qofka qadartiisa dhamaataan dhimanayo annagana dee aadana wuxuu naga ka tacsiin inna wixii ku dhintay الله نحرس لنا هاي وحي كنا وعبين على الله عافية كما عملهان أنه دي واسكي نقول كاشين إن شاء الله تعالى أنت زهرجينا نصعب جمع نبات صدق الله اللي إن شاء الله khasaaraha dhacay dhimasho iyo dhaawac intuu leegyahay wax ma nooga sheegi kartaa الخسارة مروة لقف الإسلام والصومالي هو الله وحيد وحيالله إذا يسابق خسارة هي لو ودتك إني ودت صومالي ودتك يا محضر إني إن أصحاب دايو إن دل بركة عابة دي خسارة مركا dhimasho iyo dhaawac dabcan way jiraan haddana intaas aad dhimatay ma oran karayo laakiin dhimashada way jirtaa dhaawac wuu jiraa waa barakac wuu jiraa marka waxaasoo dhan marka waxaa muhiim ah in wixii la xaliyo si ay wax dambe u dhiman ama isu dhaqaamin intaas muhiimada ah qof islaam ama muslim ama bilaadan oo ku farxayeen ma jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkaas nabad kala dhex dhigo annagana insha Allah taala anagu alla kaashayna oo kala kaashayna oo waas noo horeey insha Allah waxaan rajaynaa inay nabad aan soo dhabaalo insha Allah ma idinkunbaa go'aansaday inaad odayaasha dhaqanka oo ugaasku uu hogaaminayo aad hawsha u daysaan mise xasaasiyad kalaa jirta oo aad ku go'aansateen inaydan maamul ahaan haatan hawsha faragelinin ilaa inta odayaashu ay dhan uga soo dhacayaan Soomaalidu dhaqan bay leedahay odayaashu mar walba waxay ka mid yihiin xalka dadka dawladuna in ay dadkaas waa dadkeedii in ay kaalmayso la shaqeyso oo ciidamadii iyo dadaabka dawladda kaalmayso duubka iyo odayaasha dadku waa dadkoodii waa dadka masuulka ahayeen dawladda ay shaqeeyaan waa dad waa dadkeeni waa waasideeni waa duubkeeni inay wax kasta ay nala xaliyaan aad bay wanaagsan tahay ayaana diyaar oo mar walba u taagan marka shan u taagna marka insha Allah taala waxa weeyaan dadkaas inay kala xalnaa muhiim ah ilaahay idin waa kala xalin insha Allah axmed inji cismaan cabdulle gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan ayuu kaasi ah oo khadka teleefonka iigu warramayay halkaad weli nagala socotaana waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay bal haatana etoobiya iyadoo ay soo ximaanayso duruufta aadaminimo ee jirta ayaa fallaagada gobolka Tigray ee Ethiopia waxay sheegtay in 150 qof ay dhici karto inay macluul ugu dhinteen gobolkaasi xukuumadda Ethiopia ayaan ilaa haatan ka falcelinin warkaas hase yeeshee waxay hore u diiday ay qaramada midoobay u soo jeedisay oo aynay gargaarka gobolkaasi ka xanibtay xasan cali geele oo wararka ay ku hayay ayaa haatan stuudiyaha la fadhiyo faahfaahinta inoo haya xasan axmed nagaashe way adag tahay in si madax bannaan loo caddeeyo sheegashada fallaagada Tigreeda ee TPLF maadaama khadadka telefoonada iyo internetkaba ay weli yihiin kuwa hawada aan ku jirin gobolkaasi Tigreeda dawladda Ethiopia dhowr jeer oo hore ayaa eedeymo saan oo kale loo soo jeediyay wayna ka hadli jirtay laakiin maanta eedeymahan ugu dambeeyay kama aysan hadlin hase yeeshee hore waxay dhowr jeer oo hore ugu gacan sayrtay eedeymo ka imaanaya qaramada midoobay oo ahaa inay xanibayso gargaarka loogu talagalay dadka tabaalaysan gaar ahaan gobolka Tigreeda colaado ka jirtay muddada ku dhawaad ka haatan 9 bilood ah madaxa arrimaha beeraha ee TPLF Atinkat Misgebo ayaa sheegay in dadka iyo xooluhu ay u dhimanayaan cunno la'aan iyo dawo la'aan waxaana sheegay in xaaladda halkaasi ka jirta ay ka sii dari doonto maalmaha soo socda waxa uu u sheegay BBC-da in dadku halkaasi ay ku dhimanayaan oo ay arkayaan dad gaajo u dhintay haba ugu badnaadeen sida uu sheegay haween iyo caruur kuwaasi oo cunno la'aan baahan ay soo food saartay hase yeeshee hay'adaha gargaarka ayaa muddo dheer ka digayay in xaaladda bani'aadanimo ee gobolkaasi ka jirta ay ka sii dari karto iyadoo keeni karta cawaaqib xumo aad u weyn dadkuna aan la gaarsiinaynin gargaarkii loogu talagalay wararka ay soo saareen xogaga Tigreeda ayaa lagu sheegay in dhimashada qaarkood ay ka dhacday xeryaha dadka barakacay ay ku nool yihiin xaaladda bani'aadanimo ee gobolkaasina ay tahay mid aad u xun oo xilli kasta ka dari karayso sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobeyna waxay ahayd in maalintiiba gobolkaasi Tigreeda ay gaaraan baabuur sida gargaar bani'aadanimo oo gaaraya ugu yaraan ilaa 100 kuwa oo wada cunno iyo agab kale si loo daboolo baahida halkaasi ka jirta ee dadka ku tabaalaysan gobolkaasi ay dareemayaan sida uu sheegayna afhayeenka gobolka ee u hadlay ee hay'adda cunnada adduunka ee WFP Gordon Wayne
Evans oo BBC-da la hadlay waxa uu sheegay in taageero aad u badan loo baahan yahay gaar ahaanna goobaha ay ku fideen colaadda hubaysan ee ka jirta gobolkaasi Tigreeda iyo deegaanada kale ee dariska la ah ee Amxaarada iyo Canfarta. It's a very murky picture, as you can imagine, because this is a raging conflict, but we think that we can get. waa sawir aad u murugo badan sababtoo ah waxaani waa colaad sii xoogaysanaysa balse waxay la tahay in aan gargaar u fidin karno dad badan waxa haatan la geeyay ayaa ah gargaar bini'aadanimo oo toddobaad uun oo keliya ku filan waxaan maalintiiba u baahannahay qiyaastii 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah in ay tagaan gobolka Tigreega si aan ula tacaalno dhibaatada ku gadaaman colaadani haddase waxaan ugu soo kordhay dhibaatooyin ka jira gobolada Amxaarada iyo Canfarta marka waa howlgal aad u qallafsan oo laga fulinayo khadad ay tahay in la isku xiro waadna og tahay waxa kaliya ee xaqiiqada ah ee ka jira geeska Afrika dhibaatooyinka cuntada ee sida macaluusha oo kala ah si tartiib ah ayay u bilowdaan kadibna mar kaliya ay cirka isku shareeraan taas ayaana ah sababta ay muhiimka u tahay in kaydka horay loo sii dhigto marka ay jiraan xaaladahan oo kale and then they happen all at once and that's why pre-positioning stocks is so important in these conditions. kaasi wuxuu ahaa afhayeen u hadlay hay-adda WFP ee qaramada midoobay cunnada u qaabilsan inkastoo qaramada midoobay ay leedahay in maalintii 100 ilaa iyo 150 baabuur ayay ahayd inay halkaasi tagaan qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa 500 oo baabuur ayaa gaaray halkaasi ilaa iyo bishii July bartamaheedii tirada u baahan caawimaadda dadka halkaasi ku nool waxay kor u dhaafayaan sida la sheegay ilaa iyo 5 milyan halka 400 oo kunna ay haatan wajahayaan xaalad xun iyo abaar dagaalada waxay sida hay-addani sheegaysa WFP dhibaatada ay haatan ka soo korayso waxa ka mid ah gobolada Canfarta iyo kan Amxaarada oo iyaguna colaadda ay ku fiday oo haatan la sheegayo in dad tabaalaysan ay ku nool yihiin aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan cali geelle oo faahfaahinta wararkaasi na siinayay ayuu kaasi ahaa dhegaystayaale bal haddaba macluulay maxaa tahay sideese ay qaramada midoobay ay ku qeexdaa saalax garaad oo ah sarkaal ka tirsanaan jiray qaramada midoobay ayaa faaqidaya macluusha horta waxaa sababo badan ayaa keena haddana dhulkan ama dalkan aan ka hadlayno Ethiopia khaasatan gobolkan Tigray ee waqooyiga Ethiopia dagaaladii ka bilowday bishii November dagaaladuna waxay ka mid yihiin andhaho waxyaalaha ugu waaweyn oo ay macluushu ka dhalato qaramada midoobay marka ay iyadu leedahay meesha macluul ba ka jirta maxay ku qeexdaa waxay ku qeexdaa xaaladda dadka meeshaas degan ay ku sugnaan jireen iyo waxa la isbarbar dhigaa xaaladda ay hadda ku sugan yihiin tusaale haddaan ku soo qaato haddii barakac xoog leh uu jiro ama dalaga beeraha oo aan bixin xilligaas ama xilliyo isxiga oo abaar ay ka dhacdo meesha ama colaado raagay oo keenay barakac iyo in la gaari waayo iyo sidoo kale sicirka suuqa raashinka daruuriga ah haddii uu aad kor ugu kaco amaba ku yaraado suuqyada qaramada midoobay horey uga sii digtay inay macluushan oo kale ay dhici doonto marka maxay ahayd in la qabtay kula tahay mar haddii la filayay inay waxaan dhici doonaan waxay ahayd dhinacyada isku haya colaadda waqooyiga Ethiopia gobolka Tigray dhammaantood inay ogolaadaan in loo helo jidad loo maro dadka shacabka ah ee dhibaataysan oo aan ayagu qayb ka ahayn colaadaha qaramada midoobay waxay ku eedaysay dowladda Ethiopia in ay hor istaagtay gargaarkii dadka baahan loo geynayay dowladda Ethiopia qudheeduna waxay ku eedaysay jabhadda TPLF inay bililiqaysteen meelihii gargaarka la geeyay marka la eegayo sharciga caalamiga ee bini'aadanimada cid dembiga yeelan kartaa ma jirta maxaase lagu qaadaya horta in la hor istaago gargaarka bani'aadanimada meelaha colaaduhu ka jiraan waxaa dhowr sano ka hor lagu daray dembiyada dagaalka ee caalamiga ah oo maxkamad caalamiya lagu mutaysan karo marka eedeymaha la isku tuurtuurayo dhammaan inta dhinac la iska dhigo in kulli si siman dadka shacabka ah ee dhibaataysan loo ogolaado gargaarka bani'aadanimadu inuu gaaro ayaa lama huraan ah haddiiba ay dhacdo in gargaarkii la hor istaagay ciddii doontaaba ha hor istaagtee yaa maxkamadaas la keeni karaya ee dembiga dhowaan la meelmariyey mutaysanaya ma cidda jabhadda aba mise waa mar walba ciddii gacan sarraysa may taas kuma xidhna yacni waxaan dhahaa xukunka laga gaari karo ama mas-uuliyadda laga saari karo waxay ku xidhan tahay ciddii ay ku caddaato inay hor istaag bareer ah ku samayso gargaarka bani'aadanimada oo aan isagu wax siyaasad ah iyo colaadda labada dhinac midna aan shaqo ku lahayn oo dhexdhexaad ka ah mar haddii iminka la leeyahay macluushii waxay keentay in ugu yaraan 150 qof ay haatan u dhinteen dhibaatadiina ay weli taagan tahay
sidee ugu habboon ee ay tahay inay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale gargaarku ay uga falceliyaan arrintaa horta sheegashada 150 qofood oo dhimatay caddayn looma hayo sababtoo ah meeshii isgaarsiinna ma lahan waana adag tahay in la tago oo lasoo xaqiijiyo laakiin haddana markaad fiiriso warbixinta ooja oo 5 maalmood ka hor soo baxday hay-adda iskudubaridka gargaarka bani'aadanimada ee qaramada midoobay waxay sheegaysaa xaalad aad u liidata oo aan Tigray kaliya xataa gobolka Tigray kaliya xataa ku sinayn oo ilaa 1.7 milyan ama aan Soomaali ku dhahay 1,700,000 oo gobolada Cafarta iyo Amxaarada ayaguna ku barakacay 5 milyan iyo bar ku dhawaadna gobolka Tigray waa adag tahay in la gaaro marka xaqiiqdu waxa ay tahay meesha waxa ka jira waa ka sii daraysaa maalinta ka dambaysa gargaarkii loogu talagalay inuu gaarana maalin kasta waxa ka hor imaanaya xujooyin tusaale haddaan usoo qaato 25 bishii August jidka kaliya oo hadda gargaarku marayay wuxuu ahaa oo gobolka Tigray u marayay wuxuu ahaa dhinaca Cafarta wada la yiraahdo Sameera ilaa Aballa ma la yiraahdo si marta halkii waxa hor istaag ku sameeyay booliiska Cafarta oo soo celiyay dad gargaara oo la socday raashin iyo gargaar kale oo loo waday gobolka Tigray marka sicirkina suuqina aad u kor u kacay sababtoo ah gaadiidka ganacsigu xataa meeshii gaaritaankeedii waa ku adkaatay marka tusaale waxa ah hadda saliidda raashinka lagu karsado oo kaleeto bil ka hor waxay ahayd ilaa $6 halkii litir lacag 300 bir ah hadda waxaa la qiyaasayaa inay marayso ilaa $32 halkii litir oo saliid cunto lagu karsado culayska intaa la egi mar haddii uu jiro qaramada midoobayna ay tahay hay-adaheegu kuwa gargaar ma leedahay waddo u furan oo ay caalamka kaga codsan karto labada dhinacba inay cadaadis siyaasiya dunidu ay saarto si gargaarka